xildhibaan hore Sakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo wareysi siinaya telefishinka Universal ayaa sheegay arrimo cusub oo ku qotoma xiriirka diblomaasiyadeed ee haatan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Eritrea kaasi oo sii xoogeystay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sakariya ayaa sheegay inuu asagu gundhig u ahaa xiriirkaasi isla markaana uu isbaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea Afwerki. Sakariya ayaa yiri aniga markii ugu horeysay ayaan tagay oo isaga ayaa iga dalbaday in dowladda Eritrea inaan xiriir la sameeyno sidaas darteedna waan isbaray waa ayna wada hadleen heshiis is-afgarada ayaana dhexmaray labada madaxweyne. Sidoo kale waxa uu sheegay in wada hadalka u dhaxeeya labada dowladood bilowgoodii lagu heshiiyay in la isdhaafsado safaarado balse aysan suurtagelin. Wuxuu tilmaamay intaas ay horseeday in humaag uu soo kala dhexgalo labada dowladood. Markii xagga la tagay waxaa lagu heshiiyay in laba safaaradood horta la isdhaafsado bilowgii ilaa iyo haddana saacadan la joogo safaaradihii lama furin. Micnaheedu marka waxa weeye waxaan jirin is-afgarad u dhaxeeya labada dowladood. Sidaasi ayaana sababtay in si dhaqso loo furi waayo labada safaaradood ama la isdhaafsado. Xildhibaan Sakariya Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa soo hadal qaaday waxa keenay in dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka heli weydo xaaladii dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo haatan xog buuxda laga helay xaaladda dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea kadib markii uu booqasho uu ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hore u ballan qaaday in dhalinyartaasi uu dalka dib ugu soo celin doono.